marka aad rabtid in aad sheegtid wixii uurkaaga ku jira aadan soo bandhigi karin qof caado qaato oo lacag qaatayna aad noqotid si sarbeeban oo aan la fahmayn aa video usoo duubee alaabtan hadda ujeedaan fuusto waa af soomaali iyo bug waa sahab waxay rabaan in ay ceebeeyaan ama ay dhaliilaan ama ay wax ka sheegaan caasimadda jowhar ama maamulka hirshabeelle si ay u ceebeeyaan waxay soo bandhigeen daasadaha wasaqda meesha taalo guriga in guriga lagu soo dhawey martida oo ka yar guri yaroo iska villa inuu yahay uusan waxweyn ku dhex jirin si dadban ay waxay u durayaan ama ay usoo muujinayaan dhibaatada meesha ka jirta ama wasaqda meesha taalo iyo gurigiisu u foolxun yahay isagoo laga shaqeynin nadaafadiisii iyo meeshii martida ay degi lahayd marka si dadban ay usoo bandhigeen laakiin qofkii fahmi karo unbaa fahmi karo ujeedkooda ma ahan fuustadaas ay riixayaan ujeedkooda waxaa waaye wax kale waaye mar kale kuwan yaa waaye maxaa qaldan diyaaradda ma jareynaysaa markaashan uu jiro meesha dhibaato ay ka jirto yaa ii sheega dha dadkan lacagta ay qaateen inay ka dhabeeyaan oo ammaanta inay soo bandhigaan bedelkeeda waxay soo bandhigeen in ay dhaleecayaan waddada ay jaay tahay eelbarku usan laami lahayn meel fashilan ay tahay ay soo bandhigeen marka uurkaa wixii ku jiro afka aadan ka sheegi karin si dadban oo majaajila video u duubanaya aniga ma soo dhigaysaa dhalinyaradan iyagaa la karaystay jawharna iyaga aaday ninka aaday ani mahi wixii meeshaan lasoo dhigo ani waa falaqay ra'yigiina waa ka dhiibtaa marka jawjaw jawhar iyo wixii tahayna waa la arkay waxaan dhahnay beledweyne laamiya saaran maamulada kale amal ma ahan oo laami la-aanta oo ama karakationka ama diyaaradaha jaaga ay ku socoto ma ahan kow ma tahay laba beledweyne qudaarta ay soo saarta ama gobolka hiiraan qudaarta uu soo saaro waxaa loo dhoofiyaa gobolada dariska hiiraan sida galmudug iyo puntland iyo wixii kale xag ka sifra somaliland afar maxaan ku sheegnay waa maamulka keliya ee 5tii sane ee lasoo dhaafay baraha bulshada ugu saameynta badnaa maamul kaga saameyn badnaa hiiraan state social media ma jirin baan mala sheegay saaxiib ilaahay aan dilay baan mala sheegay hiiraan state waa maamulka ugu hadalhaynta badnaa 5tii sane ee lasoo dhaafay bal marka qaarkiis in aad riski qaadato waa arrin fiican oo waa lagu faa'iidaa xariifkan wuu soo daahay ka bacdina uu fikiray maskaxdiisu ka shaqaysay gadaal uu soo galay ka bacdina dee inuu baxayo iska dhigay waxaa leeyahay orod fadhiiso walaha bixine yaa shaxda in badan uu u fadhiistay oo uu ka fikiray uu ku faa'iiday macnaa dhowr mar uu saa sameeyey marka kalsooni 100% oo ku qabiyo inuu ku faa'iido doono lajan waa ku salaam saaxiib shaxdan waa shax fiican waa hiiraan waa magaalada keliya ee laami uu saaran yahay isku tashi bulsho lagu saaray maxaa caddaynaya waxaan aan sheegay marxuumba misbeen waa kan haddaannahay bulshada reer beledweyne shaqadan quruxda badan ay socoto oo laamigii 6 kilomitir oo runtii gabagabo maraayo qaybaha uu ka kooban yahayna la samaynayo runtii waa 6 kilomitir reer beledweyne isku tashi iyo tala dhexdooda ah waxay ku dhisteen in magaaladooda ay qurxiyaan sidoo kale laami aad u diyaarsanna ay saartaan ilaahay marka uu khayr kula rabo adigana heesi iyo munkar iyo waxyaabo kale aad si rabto inaad kusii jeetid wuxuu ku adeejinaa shimbirta iyo waxyaabaha in loo adeejiyo ay munaasabka tahay hadda ninkan fankaa loo dadan yahay xafladaas hal heesoo eraya oo isaga uu leeyahay wuu ka qaadi waayey si kastoo muusiga loo garaacay waa uu la keeni waayey oo shimbir ayaa lagu soo diray ama lagu boojiyey in uusan wax ka qaadin marka videogan ajaaniba soo gelisay dad badanaa kasoo falcelinaya kugu badana soomaali xitaa u daataan arkayay waxay leeyihiin ilaahay kheyro ninkaa la rabaa isagana waxaa naartu u socdaa jannada loo wadaa isagana waxaa naartu u socdaa saan waay marka si markaa u filiisid waa sax in xaflad meel la iskugu imaaday ilaahay shimbir uu kuga intahaa markaad maagtid inaad microfonka qabsatidba afka lagugu dhufanayo oo shimbirta ay afka kaaga dhufanayso waa wax mucjiso oo adduunka korkiisa lagu arkay oo dhaca waaye marka ninkaas fankaasi waxaas uu ku jiro ilaahay kasoo madoobayo jaw
wallaahi shaxdan soomaaliya ku fiicnayd dadkan laamiyada makeupka sameeya insaan loo kontaroolo waa gudoomiyaha dalka indiya magaalada T22 ayaa wuxuu sameeyey in uu laamigii markii xarigiisa jaray uu kontarool ku sameeyey wuxuu yidhi laamigan waa laamigii makeupka ahaa kanna ma rabo sababta ay ku dhici karto sidan inaad samaysaan maxay tahay la xisaabtan adag ayuuna sameeyey ninkaas nin caadi maaha marka soomaaliya u baahan in sidan camal loo kontaroolo markasta oo laamiga la dhisayo marka foosta weyn ah loo riixay dadka laamiyada makeupka sameeya ciao ciao in wax ku dhibaa ma weynaysa saaxiibka oo saaxiib asfaastiin in aad kelida diidaysana ku ogyahay waxaa waaye mar daadiye aad tahay jawi uu kuu degan yahay caadiga kuu qasabada ninkan xafladii oo dhan jawigeeda dhan wuu bedelinayo waxaa waaye intaa loo socday intuu usii jeedinayo ka waranayo ninkan suu hadalka soo hartay cirkuu geliyay xariif waa saaxiibkii si xad u fahmay wallah